kulanti wacan oo wanaagsan daawadaya halkani waa shabakada wararka All Banaadir waa 24 bisha 7 sanada 2019 qodobada wararka aanu idin hayno kuwooda ugu waaweyn waxa kamid ah madaxweynaha dawladda Soomaaliya oo tababar u soo xiray saraakiil ciidan hoobiyaal ku soo dhacay xaafada kamid ah magaalada Muqdisho eedayn loo jeediyay madaxda ugu sareysa dawladda Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir oo kulan la qaatay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya wax ka badal lagu sameeyay magac maamuuseedkii odayaashii soo xulay xildhibaanada Jubbaland qoxooti cusub oo Soomaali ah oo dib u dejin loogu sameeyay dalka Canada faahfaahin dheeraad oo ka soo baxaya dagaal ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose taliyaha ciidamada xoogga dalka oo la kulmay madax ka tirsan dalka Talyaaniga wararka ka baxsan Soomaalida ee caalamka intiisa kalena waxa kamid ah diyaaradaha dagaalka Israa'iil oo duqeeyay gudaha dalka Syria intaasi waxa ay qodobadii warkeena ugu waaweynaa daawada haddii aad tahay ruux nagu cusub ha ilaawin inaad subscribe tira channelkan kadibna aad taabatid calaamada gambaleelka ah si aad u noqoto daawada la socdo 24 saac wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca gudaha dalka iyo daafaha caalamka markaana ku soo dhawaada warkii oo dhameystiran aynu ku bilownay madaxweynaha dawladda Soomaaliya ayaa tababar u soo xiray saraakiil ciidan madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa uga qayb galay dugsiga tababarka Turkisom munaasabad tababar loogu soo xiray saraakiil ciidan iyo saraakiil xigeenna kamid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa kale oo munaasabada ka qayb galay gudoomiyaha aqalka sare saraakiil ka kala socotay qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed iyo saraakiil ka tirsan saldhigga Turkiga uu ku leeyahay magaalada Muqdisho madaxweynaha ayaa khudbad ka jeediyay munaasabada tababarka saraakiisha loogu soo xirayay iyo saraakiil xigeenada waxa uu kula dardaarmay in saraakiisha iyo ku-xigeenadooda tababarka loo soo gabagabeeyay in waxyaabihii la soo baray ay wax ugu qabtaan shacabka Soomaaliyeed waxa uu sheegay in saraakiishan looga baahan yahay in ay noqdaan wadaniyiin aaminsan in ay dalka leeyihiin isla markaana muhiim ay tahay in ay dalkooda difaacaan una shaqeeyaan waxaana dawladda Turkiga uga mahad celiyay sida ay u garab taagan tahay shacabka Soomaaliyeed waa dufcadii labaad oo saraakiisha heerkan ah ee ka qalin jabiyay dugsiga tababarka ee Turkisom ee magaalada Muqdisho waxaana xerada wali ka socdo tababar la siinayo ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya hoobiyaal ayaa ku soo dhacay xaafada ka tirsan magaalada Muqdisho wararkaanu helayna ayaa waxay sheegayaan in hoobiyaal lala beegsaday meelo aan ka fogeyn madaxtooyada Soomaaliya oo ay ka mid yihiin iskuulka 15 May iyo dhismayaal ay degan yihiin siyaasiyiin jugta hoobiyaal culus ayaa waxaa laga maqlay degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir duhurnimadii maanta iyaga oo ku dhacay sida la sheegayo qaybo ka mid ah degmada Warta Nabadda ee magaalada Muqdisho ilaa iyo hadda ma cadda in uu wax khasaaraha ka dhashay weeraradan goordhaweed ka dhacay magaalada Muqdisho waxaana sidoo kale wali aanan ka hadlin hoobiyaashaas mas'uuliyiinta hay'adaha amniga ee dawladda Soomaaliya eedayn ayaa loo jeediyay madaxda ugu sareysa ee dawladda Soomaaliya xildhibaan guuleed Ciidruus Cige oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya dhaqaale fara badan uu ka soo galay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka balse aan loo adeegsan sidii loo baahnaa waxa uu sheegay in dadka ku nool gobolka Banaadir laga qaado lacag canshuuro ah hase yeeshee taasi beddelkeeda aysan ahayn kuwa madax bannaan oo heli kara waxa ay u baahan yihiin isla markaana dhaqaalihii laga qaaday si toos ah loogu gudbiyay madaxtooyada Soomaaliya oo ay ku sugan yihiin madaxda ugu sareysa dalka sida uu hadalku u dhigay shacabka ku nool magaalada Muqdisho ay ugu baaqay in ay noqdaan kuwa iyaga ayahooda ka tashada iyaga oo aan eegaynin danta siyaasiga balse ay sameystaan maamul u qabta waxyaabaha ay u baahan yihiin dhinaca kale xildhibaan guuleed Ciidruus Cige ayaa sheegay in dawladda hadda jirta aysan dalka waxba ku soo kordhinin marka laga reebo wadooyinka xiran iyo in shacabka iyo waliba xildhibaanada aysan sidii ay doonaan aysan u isticmaali karin wadooyinka caasimadda dalka hadalka xildhibaan guuleed Ciidruus Cige oo ka tirsan golaha shacabka ayaa imaanaya xilli dadka ku nool magaalada Muqdisho laga qaado lacag fara badan ha yeeshee aysan ilaa iyo hadda muuqanin waxyaabo loogu qabto sida adeegyada caafimaadka waxbarashada iyo adeegyada kale oo looga bartay dawladaha hoose ee degmooyinka dalka gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa qaabilay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariiso ayaa maanta xarunta dawladda hoose ee Muqdisho ku qaabilay wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya James Iswam
kulankan ayaa labada mas-uul waxa uu ku dhex maray xarunta dowladda hoose iyaga oo ka wada hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dardargelinta wada shaqaynta qaramada midoobay iyo maamulka gobolka banaadir sida uu sheegay duqa muqdisho. waxaan maanta xafiiskayga ku soo dhoweeyey ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay James Iswam oo dhowaan xilkaasi loo magacaabay oo aan ka wada hadalnay arrimaha dardargelinta wada shaqaynta qaramada midoobay iyo maamulka gobolka banaadir isla markaana ka siinay warbixin horumarka caasimadda muqdisho ayuu yiri injineer Yariisow. wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya James Iswam ayaa dhowaan tagay magaalo madaxda shanta maamul goboleed ee dalka ka jirta isaga oo la kulmay madaxda dowlad goboleedyada isla markaana kala hadlay arrimo dhowr ah. sixitaan ayaa lagu sameeyey magac maamuuseedka odayaasha soo xulay xildhibaanada baarlamaanka ee maamulka Jubbaland. guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sixitaan ku sameeyey qaar ka mid ah magac maamuuseedka odayaasha dhaqanka ee soo xulay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka maamulka Jubbaland. guddiga doorashooyinka Jubbaland ayaa meelaha sixitaanka ay ku sameeyeen waxaa ka mid ah magac maamuuseedka odayaasha dhaqanka sida suldaan, ugaas, malaaq, nabadoon iyo magacyo kale. sidoo kale guddiga doorashooyinka Jubbaland ayaa sixitaan ku sameeyey sida ay u qoran yihiin qaar ka mid ah magacyada beelaha laga soo xulay odayaasha dhaqanka kuwaasi oo ka kooban sida uu horey u shaaciyey guddiga 135 oday. warar dheeraad ayaa waxa ay ka soo baxayaan dagaal u dhexeeya ciidamada danab iyo al-shabaab oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. dagaalkan ayaa yimid kadib markii al-shabaab ay weerar ku soo qaadeen saldhig ciidamada danab ay ku leeyihiin deegaanka Sabiib isla markaana waxaa intaasi kadib bilowday dagaal u dhexeeya ciidamada danab iyo al-shabaab. dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalka uu ka dhashay khasaare kala duwan balse ma cadda khasaaraha dhabta ee dagaalkaasi uu geystay. sidoo kale saraakiisha ciidamada dowladda ayaa sheegay inay iska difaaceen weerarkii kaga yimid al-shabaab kaasi oo ku soo qaadeen saldhigga ciidamada danab ay ku leeyihiin deegaanka Sabiib ee gobolka Shabeellaha Hoose. wararkii ugu dambeeyay ee aanu ka helaynay deegaanka Sabiib ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxay sheegayaan in ciidamada danab ee dowladda ay halkaasi ka wadaan howlgalla ay ku baadigoobayaan al-shabaab ayaa mararka qaar waxay weeraro kala duwan ku qaadaan saldhigyada ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. qaxooti cusub oo Soomaaliya ayaa waxay dib u dejin ka heleen dalka Canada. ilaa iyo 30 qaxooti Soomaali ayaa laga soo qaaday xerooyin ku yaala dalalka Uganda iyo Itoobiya waxaana dib u dejin ay ka heleen dalka Uganda gaar ahaan magaalada Brooks ee koonfur bari ee gobolka Alberta ee dalkaasi Canada. wargeys ka soo baxa magaalada Brooks ayaa waxa uu qoray in maamulka magaalada Brooks albaabada ay u fureen qaxootiga iyadoona bishii Juun iyo Juulaay ay soo dhaweyn u sameeyeen ilaa iyo 30 qaxooti Soomaali dib u dejin ka helay wadanka Canada. dowladda haatan ka jirta dalka Canada waxay taageereen inay dalkaasi yimaadaan qaxooti kuwaasi oo badankood ah Soomaali horeyna ugu noolaa xeryaha qaxootiga ee ku yaala gudaha dalka Itoobiya iyo Uganda. la taliyaha dib u dejinta ee magaalada Brooks ahna madaxa adeega socdaalka ee gobolkaasi waxay sheegtay in dowladda Canada sanadkii ugu horeeyay taageerayso qaxootiga kuwaasi oo dowladdu ay keentay. waxay kaloo intaasi ku dartay in qoysaska qaxootiga ee la keenay ay muddo 10 ilaa iyo 14 maalmood ku nagaan doonaan hotel ka hor inta aan la helin dhismo la dejiyo. inta ay qoysaskaasi ku jiraan hotelka waxaa laga taageeri doonaa baahiyahooda khaaska gaar ahaan cuntada iyo dharka. qoysaska qaxootiga Soomaalida ee dib u dejinta ka helay magaalada Brooks ee dalka Canada waxaa kaloo la bari doonaa dhaqanka deegaanka iyadoo qoysaskaasi laga diiwaan gelin doono dugsiyada gaar ahaan carruurta waxaana dadka waaweyn la siinayaa barnaamijyada barashada luqadda Ingiriiska si ay u noqoto luqadooda labaad. si kastaba ahaatee dowladda federaalka ee wadanka Canada ayaa waxay qorsheynaysaa inay sanadkan dib u dejin u sameeyaan ilaa iyo 25,000 oo qof oo isugu jira qaxooti iyo shakhsiyaad ay dowladda Canada siinayso badbaadin. taliyaha ciidamada xoogga dalka ayaa dowladda Talyaaniga kala hadlay arrimo muhiim ah. taliyaha ciidamada xoogga dalka sareeya gaas Daahir Aadan Cilmi Indhaqarshe iyo wafdi uu hogaaminayo oo ku sugan magaalada Rome ee dalka Talyaaniga ayaa kulamo la qaatay mas'uuliyiinta ugu sareysa ee ciidamada ee wadanka Talyaaniga. General Daahir Aadan Cilmi Indhaqarshe ayaa madaxda ciidamada dalka Talyaaniga kala hadlay xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee Soomaaliya iyo Talyaaniga iyo sidii sare loogu qaadi lahaa taageerida dhinaca tababarka ee dowladda Talyaaniga siisa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. sareeya gaas Daahir Aadan Cilmi Indhaqarshe iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa dhowaan gaaray magaalada Rome ee dalka Talyaaniga isagoo halkaasi ka wada kulamo kala duwan oo la yeelanayo madaxda wadanka Talyaaniga.
kumanaan muhaajiriin ah oo ay Soomaali ku jiraan ayaa gacanta lagu soo dhigay. Ugu yaraan 2212 muhaajiriin sharci darro ku joogay dalka Turkiga ayaa la soo qabtay kadib howlgalla ciidamada ammaanka dalkaasi ay ka fuliyeen gobollada dalkaasi oo dhan. Howlgalladan oo socday muddo isbuuc ah ayaa la sheegayaa in lagu soo qabtay tirada ugu badan gobollada bari ee waddanka Turkiga iyo gobollada xeebaha ee xuduudda la leh dalalka Greece iyo Bulgaria. wakaaladda wararka ee dalka Turkiga ee Anadolu ayaa waxa ay ilo ammaanka ka soo xigteen in howlgalkaas oo ahaa kii ugu weynaa ee lagu soo qabtay kumanaan muhaajiriin ah oo bilaa sharci ku joogay dalka Turkiga. Wakaaladdu waxaa kaloo sheegaysaa in inta ugu badan muhaajiriinta la qabtay ee Turkiga ku soo galeen qaabab aan sharci ahayn iyo in ay qorsheynayeen in ay Turkiga ka dhigtaan marin ay uga sii gudbaan dalalka Midowga Yurub. kumanaankan ruux ee muhaajiriinta ah ee maalmihii lasoo dhaafay lasoo qabtay waxaa la sheegayaa inay ka soo kala jeedaan dalalka Soomaaliya, Syria, Masar, Liibiya, Tunisia, Morocco, Senegal, Afrikada Dhexe, Algeria, Falastiin, Iiraan, Bangladesh iyo waddanka Pakistan. muhaajiriintan ayaa waxaa qaarkood daryeel caafimaad loogu gudbiyey isbitaalada halka kuwa kalena loo gudbiyey xafiisyada waaxaha socdaalka ku leedahay gobollada howlgalladu ay ka socdaan. dowladda Turkiga waxay martigelisay qiyaastii 3.7 milyan oo qaxooti iyo muhaajiriin waana dalka ugu badan ee qaabilay qaxootiga marka loo eego dalalka caalamka sida ay xaqiijisay wakaaladda muhaajiriinta caalamka ee IOM. weli waxaad daawanaysaan wararka shabakadda All Banaadir markaana wararka caalamka. diyaaradaha dagaalka ee waddanka Israa'iil ayaa duqeyn ka fuliyey gudaha waddanka Syria. warbaahinta dowladda Syria ayaa waxay sheegtay in diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ay duqeyn ka geysteen buurta Tal Al-Hara. telefishinka waddanka Syria ayaa baahiyey in duqeyntaas ay geysatay burbur qalab oo kaliya. buurta Tal Al-Hara ayaa ah deegaan istiraatiiji ah oo ku foorara dhulka buuraha Golan Heights oo ay Israa'iil qabsatay sanadkii 1967. ciidamada dowladda Syria iyo kuwa ka socda Iiraan ayaa waxay bar ciidan ku leeyihiin buurta Tal Al-Hara oo ay sanadkii hore kala wareegeen maleeshiyaad ka dagaalamayay gudaha Syria. dhinaca kale ciidamada Iiraan ee ku sugan gudaha Syria waxay ku xoogan yihiin koonfurta dalkaasi iyo meel u dhow buuraha Golan oo u dhow xuduudda ay wadaagaan Israa'iil iyo Syria. bishii la soo dhaafay ciidamada waddanka Syria waxay hawada kaga hortageen tiro gantaalo ah oo ay dowladda Israa'iil la soo beegsatay buurta Tal Al-Hara ee gudaha waddanka Syria. guud ahaan warkii oo aad kala socoteen shabakadda All Banaadir xilligan waa naga intaa. daawada haddii aad tahay ruux nagu cusub subscribe channelkan kadibna taaba calaamadda gambaleelka si aad ula socotid wararkii warbixinada 24 saac ee aan soo gelina halkan. waadna ku maasan tahay daawashadaada.